hablaha Soomaaliyeedow waad u jeedaan toos baa maanta nala soo abaar qabiil bay sheekadii fanaaniin Soomaaliyeed ayaa lagu gafaya oh yeah come on naagta waxa la yiraahdaa bacda buufsan naagtan ilhaan galgacal la yiraaho ya aabaha iyo midgadi ku dhasha wase ya daraada nasab laga dhigay ya midgaanye xunta laangaabta qabiila ku soo kiciimiya oh yeah come on ilhaan xarago saad ogtihiin waa fanaanad waa aktarad waa gabadh la yaqaano caan ah runta marka la isku sheego waa geesiyad ilhaan xarago kuma jirto hablaha Soomaaliyeed iyadoo kala kuma jiraan hadday qurux noqoto hadday jilaan noqoto hadday noqoto maxaa dhac aktarnimo hadday noqoto maasha Allah asturnaan oh yeah come on Soomaali weyn magaca aan ku leenahay wax magaca aan ku leenahay ma aragtay waxa ku cadeynaysa oh yeah come on khamra iyo xashiishad buu kugu wasi jiray ninkan uu sheega kastuumadaadu imikana xasuus u haystaa uu sheega This could be so I want to get to wicked and be Misha want to get Drama show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada Soomaalida shida mar walba aad ka maqashaan wixii cusub iyo oo kusoo kordha fanaaniinta iyo dadka caanka ah hadaba arrinkii u dhaxeeyay Nasteex Qaran Muno iyo Ilhaan Xaraga ayaa cirka isku sii shareeray waxa meesha isaga baxay oo ilaa iminka aan hada laga helin Foosiye Ifka iyo Cabdixamiid iyo gabadhii kale Ilhaan Xaraga la soo galeysay Firdaws booska waxa iminka soo buuxiyay Xamdi Kalgacal oo Ilhaan Xaraga u soo yeelisay baalahana ka soo riftay Muno iyo Nasteexo siiba Muno oo ay soo qaadatay hadda koor wiilkii ninkii oran jiray kastuumadeeda urursanaya taasina ay si weyn uga careysiisay Muna oo intay soo fariisatay xitaa qabiil Soomaaliyeed si xun u caysay oo ilaa ay sinjigeedaba ka soo qooday fiidiyoyaashu way badan yihiin waan jecelnahay inaan mar walba idin la wadaago oo aan mar walba idin soo gudbino hase yeeshee daawadayaal shuruucda YouTube-ka waxyaabaha qaar ma ogolo oo sida dhaaro kaleeto waxyaabaha anshax darrada oo afka maaragtay luqadda Ingiriiska oo kaleeto marka si toos ah idinkuguma soo gudbin karno midda kale Ilhaan Xarago wali wax jawaab laga hayo oo ilaa shalay clipkeera ay soo dubtay ayay ku gaabsatay hase yeeshee mid walbaaba waxaan idinka tusaynaa qayb yar oo cod ah inagu isku day doono in walbaaba qancino aan si aysan dadku noogu fahmin inaan dhan u janjarno annagu wixii dhacay un baan soo gudbinaynaa cid aan gooni maaragtay u weeranayna ama gooni aan ula jirno ma jirto oo fanaaniintu way haystaan labadooda haday dad kala dhax galaan way soo deynina haday dad u soo heliyaan waa idin soo deynina si aad ogaataan xogta dhabta meesha ka jirto halkan baa caawa la isku baabaya wax kasta oo siran hayana waa soo gudbinaya habeenaati ma jirto naif 7 week baan kurto 7 cisho ayaa waxaan isha ka eegaynaa dad is haysta way soo galaan leef soo doonaan ba u karbaasheen waa laga xishooda way soo galaan haddana waa laga xishooda waa markii saddexaad hablaha Soomaaliyeedow waad u jeedaan toos baa maanta nala soo abaar qabiil bay sheekadii fanaaniin Soomaaliyeed ayaa lagu gafaya ilhaan xarago saad ogtihiin waa fanaanad waa aktarad waa gabadh la yaqaano caan ah runta marka la isku sheego waa geesiyad ilhaan xarago kuma jirto hablaha Soomaaliyeed iyadoo kala kuma jiraan hadday qurux noqoto hadday jilaan noqoto hadday noqoto maxaa dhac aktarnimo hadday noqoto maasha Allah asturnaan ma fahmi kartaan muhiimaddu waxay tahay caawa la isku soconayaa baan iri laba habrood oo cajuusada ah oo halkan sirtooda inigu hayeen inii soo gudbin doono oo mid noloshu ka dhacday Muna la dhahaa u gudbiya caawa leef ku dambeeyay inta soo gashay tishnaw bay leefahay ay waxay tirdalaan gaabkii Facebook-yada uga hadli jiray ikraan maxaa dhahay Ilhaan Xaragiyo naciimaha soo kaxaystaan naciima tahliil naya kaama laan gaabsananaya ada laan gaabad ahnaya naciima tahliil waa naag haliyay oo naag ma dhibaana weeyaan naya adiguna waxa tahay naagta waxaan sheegayaa Nasteexa u qoran tahay hada hooyadiin iyo meeshaad ka timaadeen na sheer garayo gaarsiya naagaha gaarsiya wallahi oo billaah talaan sheexasa lahayn tan sheexasa wallahi inayna lahayn toos baa nala soo abaar waan dhagahan iska furaysana fanaaniintii baa la kala maxagarasa la qabiyaaraday naciima tahliil ma taqaantaan waayo yay ka dhalata riwaayada qoto riwaayada kaafiya kala dheeri bay ku jirtaa waa miyaradii
ما يسعتا قبل ميرada ku matalaysa riwaayada kaafiyo kala dheeri waad fahmi kartaa baan u malaynayaa oo marka maxaa la dhahaayay fayrus maama fayrus sheekh daahiriya maamada kale uu dilayo maxaa la dhahaayay wiilku gabadha uu la jilayo weeyaan waa naag ma dhibaana okay kasi gudub gabadha la leeyahay ilhaan xarago waa gabadh Muusa adeer boqorkii codka adeer u ah awow ah الله يرحم الرحمن الله ونحرسته نينكي لا دهاي محاله دهاي عمر دولة علي asagoo fanaan jirin ayadoo fanaanad hablood aan jirin ayuu marna codka dumarka ku heesi jiray daha dabadiisa intuu galo marna uu ku heesi jiray codka ragga may jirin hina Soomaaliyeed oo heesta marka maanta ubadkiisa ya dhaxalkii fanka ina lagu tumto oo lagu ciyaaro oo Soomaaliyeed qabiil ku fiirsataan inaguna waad ka hadli lahaydeen labada hablood waxaad uga hadli weydaa naagahan baraha bulshada ku haysta aad uga aamusantiin waxa ay tahay waxa weeye laangaab ka soo jeedaan hadaba laangaabka ma soo jeedaan ayaga ugu laandheeraysan waxba ma dilaan reerkooda waxba ma qarxiyaan waxba ma dhibaateeyaan daba dhilifka dadka fadlan lacag ku shubaa dadka u shaqeeya Mahdi Abukar ii gaarsiya asxaabteeda may taageersantiin ii gaarsiya please ilhaan xaraga iyo gabadha Niciimo la dhahayo waa dad asturan waa dad ma garanaysaa la yaqaanay sharmuutooyin ba Facebook u soo farsta every time oo ku aflagaadeeya waan iska daawanayna waan iska dhaafayn waan arkayna waan iska dhaafayn sheekadii caawa qabiil bay gaadhay xalay bay soo galeen midgaatihiin waa iska aamusna waa iska deynay haddana saaka waxba u jawaabinaan isla abtino baa la soo galay leef haddana laangaabatiin ordo laangaabiyadiina soo raadsada laangaabiyadiina soo kaxaysta baraha bulshada ka hadli jiray ciidan baa doonateen ilhaan xaragay noo soo jawaab ilhaan xaraga uma jawaabto dameerka markuu faras la daaqo muxuu ismoodaa dameerka fardayaashaad aragteen markuu dameerku la daaqo muxuu ismoodaa imaadayaan wuxuu ismoodaa marka dameer farow hadda eeg dameerkii faraska marka isku galmoodaan maxay iska dhalaan dameer farow Soomaaliyeed dadka shalay ilhaan soo caan saartay ayadu ay ku soo dartay riwaayadaha ayada hoosteeda ka qaraaban jiray gurigeeda hoosteeda hoos wax ka cuni jiray diraca ilhaan xidhata ka daba xidhan jiray ayaa maanta barihi bulshada ku caayaya Soomaalina indhagu guraad la tihiin bal kabiigina qabiile soo taatiin maxaa ii diiday inaan ka hadlo marka fanaaniintayda suuqa dhexdiisa la jijiiday inaan ka hadlo maxaa dhigi karbaa caawa igu kacsan sheer garana ala shaydan ku yaal waan soo dhigayaa waana soo saaraya caawa ceebtooda haye waatan waadarta waxay la raaxaysanayso isug waliba wax yariisu naaya marka baraha bulshada soo galisid ilhaan sawir ilhaan leedahay oo ay madaxeedu asturan yahay oo wajigeeda lahayd baa lahayd filter aad ku soo dhaweynayse naaya iyagoo video yahban ka hayna naya akhriga afka ka jaqaysid naya si fiican saagnaagta muuna la leeyahay naya waan ka hayaa bakr ciida amaala waa soo deynaya raga lacagta Yurub kaga cuntay naya waa ka raga Yurub lacagta kaga cuntay naya khamriga nigiskaaga ursanaya naya oo fiirsanaya dhagaysta amnaagtida tahay kan ana soo xasuusana intaan ku haystaa qalbigeygan ku haystaa nigiskaaga ursanaya nigiskaaga ninka Yurub jooga lacagtiisa dhacday waa hagaag daawadayaal intaasi kadib haddana waxaa iyagana live soo galay Muna iyo Nasteexa oo u soo jawaabay Xamdi Kalgacal halkaasi wixii ka dhacana waan idin soo gudbin doonaa waana inala daawan doontaan يا Xamdi Kalgacal midgaan ya nacala aabini labadiis ka kiindasha ku taale waa naaga midgaamiina oo laangaabe oo nasab dhimane ya wasaaqiinta xunta naaya Xamdi Kalgacal naaya shalay farciisa dad nasab baan naqanay maxamed gargaata baan nahay hebel baan nahay naawa wax aataay mala midgaan aataay yaa ka dhigana abgaal Ismaan yaa ka dhigay adiga nasab Xamdi Kalgacal qaali abay qabiil Niciimada halin waa naag ma dhibaan kan ka wasaani aba wase ani ma midgaan ka dhigi ilaa ka dhigay baxa cararno maafkii ugu soo suuray ani midgaan to dhashay Xamdi Kalgacal liida maxamed gargaata ma ahayd tartiiday ma qaani qabiilkooda hebel gargaata baan la dhaha annaga dad nasab baan naqanay xafladeeba dhigteenbo nacala aba ku yaalna Xamdi Kalgacal ana jinka kor isku soo qaad midaan ku sheegaya gabadhaanaytu waxaa waaye abay afhayeen waxay sheekada rib hadayba qaraxdano qolo kasta oo Soomaaliya ay iska dabalaalaadisaan fahmaysaa gabadhaan waxay tahay waa la yaqaanaa bacdan la buufiyay waxay tahay iyo waxay gashay waa la yaqaanaa waa la og yahay ma fahmaysaa walaalay anaga waxaan ku sheegaynaa aqoon kuma leeyin meesha asku soo dhaxtuuraysid iska jooji horta number 1 taas wahay number 1 waxa tahay adaa maanta ah
haddaad afhayeen tahay iyo haddaad af urto tahaybo adaa waxaa tahay horta kow fahmaysaa Nacala shaydaan ku yaala sheer gareeya kulaha naag waxaa tahay saqajaamad oo koornayso oo ayadoo nin qaba nimanka kale la koornaysaa tahay horta sharaftaada waa taas caawa gacanta aan kuu saaran xamdi kalgacal fiiri adiga waxaas adoon gelin macaantooy naagtan waxay tahay dadka loo sheegaa naagta buufsan waxay tahay oo bacda la buufiyo la xiro maaragtay horta abaalkeeda waxaa taqaan gabadh yiraahdo qatro oo joogta Faransiiska xamdi kalgacal midgaana tahay waxaa loo caayay xamdi kalgacal hawiyo lama dhalanin niyada lagu dhisooyaa warshabiga dhay qabiilkeeda uu sheegay xamdi kalgacal hawiyo baa naqday waxay dhaqta ku dhooysan hawiyada isku moodahay naawadiga 100 sano ka hor baan ku gumaysan jirnay midgaana ahayd kuma guursan jirin kuma rabi jirin naciimo taaliil waa naag ma dhibaane ya aba ma dhibaanka ka was adaa midgaana rabtaa mi anaa nasab inaa la sameel istaagtid midgaanti ku dhasho wasde bacda buufsan caadi ma aha wallahi billahi caadi ya ilhaan waa midgaan naciimo tahliil waa midgaan adigana gudoomiyooda tahay inta midgaan oo kalena ha soo raacdo midgaan waxay yihiin Soomaaliya taqaan ani ma ka dhiga midgaan naaya xamdi galgacal ani ma ka dhiga midgaan aabaha wase ani ma ka dhigay midgaan ilaa ku doortay midgaan yay midgaan tu dhashay maxaa midgaan lagu yiri aabaha ha ku wasaay walaalka ha ku wasaay maxaa midgaan lagu yiri naag dhaqan xunaatihiin dad dhaqan xunaatihiin naaga wiilashooda wasaatihiin midgaanti idin dhasho wase xamdi galgacal loo wada orda xamdi galgacal anaa jinkeeda wasaay ka waran mana waa hursan tahay maanta waxaan ku idhaahday war dhan gabadhii nastaaxadii ag fadhisay iga aamusay tiri qabiilkeeda baraay tala waxay xamdi ku samaysa badana waxsan uga warsiiyey koornaysa waaye oo la qabo oo qaraabato way koornaysaa xamdi kalgacal bacda buufsan way koornaysaa haddaan kuu sheegayaa magafa afka iyo dabada saas kusoo fujiray magafa afka iyo dabada maaragtay saas dabadeedu waa hol waxa barariyo wasmale waa afka iyo dabada afka guska usoo gasho dabada ku leeyahay oo ilaa afka keeni jiray ma fahmaysaa bella qofka noocaan oo kale anaga inuu soo aan baxda horta diidayna xamdi galgacal naag midgaan oo wasaqada tahay ayadoo